Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel Osman Banjar for studying the English language. I'm ready here to teach you the English language, and I think you're ready to learn the English language. Please, if you're new to our YouTube channel, hit the subscribe button. Dear brothers and sisters, haddii aad channelkeena ku cusub tihiin, gambaleelka furo oo subscribe dhaho oo gambaleelka furo. Haddii aad horey noola joogtay haddaad cusub tahayna like ta. Maanta waxaan soo qaadanaynaa labadeeni su'aal oo ah cashirkii la soo dhaafay ayaan waxaan ka qaadanaynaa laba su'aal. Waxaan ka rabaa su'aasha koowaad inaad ii qortid kaasi waa maroodi. Kaasi waa maroodi, su'aasha koowaad. Su'aasha labaad waxaan ka rabaa inaad ii qortid okay, waa maxay kaas? Waa maxay ka ama kaas? Waa maxay? Okay, su'aasha koowaad kaasi waa maroodi. Su'aasha labaad waa maxay kaas oo su'aal ah. Okay, intaas kadib waxaan horey usoo fahmnay this iyo that. Labadooda waxay ka hadlayeen singular, hal shay ayay ka hadlayeen oo ku dhow oo mid ka dheer. Marka waxaan qaadanaynaa qaab jamac ah markaad qofka wax weydiinaysid, ama qaab jamac ah oo labadii hore aan usoo dhaafnay mid ka mid ah ayaan qaadanaynaa insha Allah. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni maanta waa cashirkii 21aad. Waxaan ku qaadanaynaa these are oo ah kuwani waa. These kuwani are waa. These are kuwani waa. Okay, these are kuwani waa. Marka kuwani waa ayaan ku qaadanaynaa. Afar ayaan qaadanaynaa marka hore. Afartaasoo ah okay, these are kuwani waa children, carruur. Children. Okay, children waa carruur. Children maxay ka yimaadeen? Child ayay ka yimaadeen. Children waxay ka yimaadeen child waa hal canug. Hal canug marka uu yahay waa child. Markay carruur badan yihiin waxaa leedahay children, carruur. Okay, these are kuwani waa children, carruur. Okay, kani waa canug markaa leedahay waxaa leedahay this is a child. Child waa hal canug. Children waa carruur badan oo meel ku ciyaarayaan. Marka jamaceedi waaye. Child kuma jirta jamacyada esta lagu daray ma. Jamacyadan si kala loo yaqaan waxaa la yiraahdaa irregular pluralis. Okay, waan baran doonaa insha Allah. These are children, kuwani waa carruur. Tan koowaad waa these are children, kuwani waa carruur. Tan labaad ayaan guda galaynaa oo ah these are kuwani waa my siblings, walaalahay. Siblings waxaa la walaalaha wiilasha iyo gabdhaha kula dhashaan walaaladay ayaa waxaa la yiraahdaa siblings. Laakiin marka dhayso my brothers, walaalkay, walaalahay oo wiilasha, my sisters, walaalayaashay oo gabdhaha ah, marka isku qabo siblings. Okay, marka leedahay marka kuwan waa walaalahay waxa weeyaan these are my siblings. Kuwan waa walaalahay. These are my siblings. Kuwan waa walaalahay. Okay, these are children. Kuwan waa carruur waan aragnay. These are my siblings. Kuwan waa walaalahay waan aragnay. Okay, waxaan qaadanaynaa marka these are kuwani waa my father and mother. My father and mother. These kuwani are waa my father, aabahay, and mother, iyo hooyaday. Andadaas and waxay isku xiraysaa iyo hooyaday. Anda waxay isku xiraysaa labadan magac oo ah aaba iyo hooyo. Marka aaba iyo hooyo maadaama ay isku xirayso waxaan dhihi karnaa jamac ayay ka dhigaysaa ama wadar jumlada. Ma dhihi kartid these are my father kaligiis ma dhihi kartid. Waayo these are markaad isticmaalaysid waxa aad sheegi rabtid waa inuu ahaadaa wax jamac ah ama wadar ah.
these kuwani are wa my father aabahay and mother iyo hooyaday. waa isla fahmna taas. Okay, these are kuwani wa my sisters walaalayaashay oo ah gabdhaha kula dhasheen. wiilal iyo gabdho markay yihiin waa siblings, markay ay wiil kaliya u yahay waa brothers, gabdho kaliya markay yihiinna waa sisters. These are kuwani wa my sisters gabdhaha ila dhashay ama walaaladay oo ah gabdhaha ila dhashay. Okay, afarta waa ka fahmnay. aan afarta jumladood aan ka soo qaadanay. these are waxay kala ahaayeen these are children kuwani waa caruur, these are my siblings kuwani waa walaalahay, iyo these are kuwani waa my father and mother hooyaday aabahay, father and mother and mother, my father and mother kuwani waa these are my father and mother kuwani waa hooyaday aabahay. Okay, these are my sisters, these are my sisters kuwani waa walaaladay oo ah gabdhaha kula dhashay. afartaas jumladood waad iga haysaa marka. waxaan fiirinaynaa marka questions and answers about these aad ku dhawaaqay jumladii ah these are why. Okay, questions su'aalooyin and answers iyo jawaabooyin about ku saabsan these kuwan. Okay, what are waa maxay these kuwan? what are these kuwani maxay yihiin? wax shaygaas waa inuu ahaadaa shay jamca ama wax lagu weydiina waa inuu jamc ahaadaa. haddii hal shay lagu weydiina what is this lagu dhihi lahay oo wax kuu dhawaa, marka shayadan oo lagu weydiina waa wax adiga kuu dhow. Okay, what are maxay yihiin these kuwan? maxaad ku jawaab marka these kuwan are waa aunties quraanshayaal weeyaan quraansho ama quraansho. these are kuwani waa aunties quraanshayaal, quraansho badan oo meel dhooban ayaa waxaa lagu dhahay what are these kuwani maxay yihiin? these are kuwani waa aunties quraanshayaal. su'aala lagugu soo celiyo oo ah kuwan quraanshayaal miyaa in lagu dhaal rabaa aarta banaanka la keenaa sida hore ista banaanka loo keeni jiro kale. waxaa lagu leeyahay are these aunties kuwan quraanshayaal miyaa kuwan? hadday haa tahay jawaabta waxaa leedahay yes ha. they oo ah quraanshada, they xayawaan waa loo isticmaali karaa markuu jamc yahay. they ayagu are way yihiin. yes they are ha ayagu way yihiin. Okay, ama waxaa dhigi kartaa yes ha they are aunties ayaga waa quraanshayaal. ama waxaa dhigi kartaa yes ha these are aunties kuwani waa quraanshayaal. labadaas mid la fahmay. haddii no ay tahay jawaabtaada maxaa leedahay no maya. these kuwani are not ma aha aunties quraanshayaal ama waxaa dhigi kartaa no maya they are not ayaga ma aha quraanshayaal. marka waa isla fahmnay. su-aasha haddaan dib ugu soo celiyo waxaa lagu dhahay what are these waa maxay kuwan? these are aunties ayaa dhahda kuwani waa quraanshayaal. are these aunties kuwan quraanshayaal miya? yes ha they are way yihiin. ama no maya they are not ma ahan. they ayagu are not ma ahan. Okay, cashirkeeni 21 waan fahamnay aan jeclahay. Okay, cashirkeeni 21 waa fahamnay aan jeclahay. marka waxaan ka rabaa adiga inaad ka soo jawaabtid su-aashan aan ku weydiinaa commentiga ugu jawaabtid. su-aalihii hore labay ahaayeen, tan saddexaad ku dar. waxaan ka rabaa these are aunties hadda waa jamc
كديك singular كلي كديك أو حد ليسا تاني وقرنشو إن هذا الغرض these are aunties وفهم تاني وقرنشو إن كديك كرت الغرض أو هل قرنشو أدوت الماما أو كودو أوكي waxaan idin leeyahay anigoo teacher Osman Abdul Qadir Banjar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.